السلام عليكم أصحابتا dagaalkii waa uu bilowday waxaan ognahay in Mareykanku ay saacada ka hor gacanta ay ku dhigeen markab xamuul oo dawladda Iran ay leedahay isla markaana markabkaasi waxa uu ku socday dekada Bandar Abbas ciidamada SATCOM ee jooga xeebaha Oman ee Mareykanku uu leeyahay oo go'doominta ku haya Iran in maraakiib aysan aadin dekadahooda oo wax shidaal aysan ka soo qaadin amaba sidoo kalena aysan gelin ayaa gacanta ku dhigay muuqaal ayna soo bandhigeen iyagoo markabka u digaya isla markaana dhahaya qaybta matoorka hal la baneeyo rasaas ayaan ku soo rideena madaxweyne Trump waa kii horay qoraal u soo qoray bartiisa Truth Social-ka oo sheegay markabkaasi oo horay Mareykanku cunaqabatayn uu u saaray gaar ahaan wasaaradda maaliyadda inay gacanta ay ku dhigeen isla markaana waxa saaran ay baarayaan dawladda Iran haddaba arrintaasi waa ay ka jawaabtay waxayna tiri jawaab culus ayaan ka bixinaynaa dhaca loo geystay markabkeena oo badaha caalamiga marayay waxaana Mareykanka ay ku eedeeyeen xabajoojintii u dhaxaysay in ay Mareykanku u jabiyay haddaba wararka hadda soo baxaya waxay sheegayaan in Iran ay diyaarado drone ah ay ku weerartay maraakiibta dagaalka ee Mareykanka ee halkaasi joogay marka arrintaasi waxa ay cadeynaysaa in hadda dagaal u dhaxeeya mar kale labada wadan ee Mareykanka iyo Iran uu qarxay maadaama xabajoojintii markii hore Iran ay ku eedeysay qabsashada markabkaasi oo ciidamada Mareykanka ay gacanta ku dhigeen haddana Mareykanku waxa uu leeyahay Iran iyada ayaa na soo weerartay oo diyaarada drone ah nagu soo weerartay marka meesha waxa ka bixi doona wada hadaladii la waday oo la doonayay in xal looga gaaro arrintan in xabajoojinta la kordhiyo sida hadda muuqanaysa Iran waxa la leeyahay diyaarada drone ay ku soo weerartay ciidamada Mareykanka ee jooga halkaasi markabkan xamuulka ah oo Iran ay leedahay oo u muuqda in uu ahaa markab ganacsi gaar ahaan shidaalka kuwa qaada in hadda Mareykanku gacanta uu ku dhigay markabka dagaalka ee Mareykanka ee USS Spruance la yiraahdo oo gantaalada la hago ay saaran yihiin ayaana gacanta ku dhigay sida muuqaalkan aad ka arki doontaan marka Iran hadda jawaab ayay ka soo bixisay oo diyaarada drone ayay ku soo weerartay ayaa la leeyahay ciidamada Mareykanka ee halkaasi ku sugan marka waan arki doonaa xaaladdu halka ay ku dambayso laakiin hadda dagaalkii inuu dib u qarxay ayaa muuqata maadaama labada wadan mid waliba kan kale uu ku eedeynayo xabajoojintii in uu isagu jabiyay waan arki doonaa xaaladdu halka ay ku dambayso laakiin ma qumana bal muuqaalkan ila daawada markabka dagaalka ee Mareykanka markii uu xabadaha ku ridayay digniinta isla markaana uu dhahayay markabkaasi oo magaciisa la yiraahdo Tuska baneeya qaybta matoorka maxaa yeelay waxaan doonaynaa inaan soo risaasayno muuqaalkan kooban oo ciidamada saldhigga dhexe ee Mareykanka ee SATCOM ay baahiyeen warbaahinada ay la wadaageen bal wax yar ila daawada Motor Vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Okay, we gave the flare. Marka waan arki doonaa asxaabi waxyaabaha ka soo kordha laakiin hadda sida muuqanaysa in labada wadan mar kale ay fooda istarayaan ayaa muuqatay stay tuned waxyaabaha soo kordho halkan ayaad ku soo gudbin doonaa insha Allah